xildhibaan Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan ahna wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore dowladda federaalka ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay munaasabad si sare loo soo agaasimay ay ku shaacinaysay in ay u taagan tahay xilka sare ee dalka ee madaxweynenimo. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha aqalka sare Axmed Xanshi, labada aqal ee dalka, gudoomiyaha haweenka qaranka, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliima Yari, fanaaniin dhalinyaro, haween iyo marti sharaf badan. marti sharafka oo ka soo qayb galay ayaa inta badan ku nuuxnuuxsaday in isbedel loo baahan yahay oo haweenka lagu eego markoodii. aqalka hoose golaha shacbiga lagu wadaa waxa weeye marka la isku daro 80 iyo something waa ka badan yihiin dumarku. xil gooniyaha sii saaran inay doortaan oo tijaabiyaan oo yiraahaan bal haddii wax badan baan dooranay soona aragnay raggii hadda arrinta gabdhihii baa sheegay iga horreeyey aan sidaa niraahno soddon iyo dhowrkaasna waxaa tareenka darwalka arag waa mar ay qarna lagala dhacaan iyo mar ay geed afka loo geliyaan iyo maraba badweynta dhexdiisa ajiyaan. marka waxaan aniga daran lahaa ragow inaan adinka markiin isku daydin rakaab inaan noqotiin furaha noogu dhiibteen Fawziyo Soomaaliya SOMLIAI gabadhuna ayday qaadataa wiilkuna ayadoo qaataa. marka Soomaaliya rag iyo dumar kala ma laha waa sidashay. Fawziyo gacmo balaaran anaga oo runtii axsaabta siyaasadeed haddaan nahayna waxay noo tahay runtii sharaf khaas ah ay noo tahay inkastoo musharaxiin badan xisbiga ka socdaan laakiin musharaxada kaliya ee runtii axsaabta ka socota ilaa xilligii axsaabta la aasaasana runtii ay ka ahayd xisbiyada ugu waaweyn xisbiyada Muqdisho hadda ka jira. mudanayaasha musharaxiinta ee maanta u taagan xilka inay qabtaan qofka ugu mudan ee in la doorto ay tahay inay tahay gabar Soomaaliyeed oo Fawziyo ay waajib u yeelatay in la siiyo markaan gabdhaha Soomaaliyeed. dambeyntiina waxaa khudbad dheer oo ay ku sharxayso musharaxnimadeedii ka soo jeedisay xildhibaan Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan. qodobada soo socda waa saldhigga qorshahayga dheer long term strategy, saldhig howlgalka operational plan iyo wadiiqooyinka lagu gaari lahaa dowladnimo taam ah, nabad waarta iyo mashaariic horumarineed oo u maslaxad waa danyarta, dhalinyarada, shaqo la'aanta iyo danyarta iyo masaakiinta vulnerable people. iyadoo aan ku fulin doono maamulka iyo howlgalladayda la tashi, wada tashi, dhagaysi iyo baaraandeg sida howluhu u kala mudan yihiin. waxaan haddii guusha ilaahna siiyo aan fulin doonaa arrimaha soo socda iyagoo faahfaahintooda ay ku taalo manifestada ama qoraalka qorshaha lagu howlgelin doono. kow, ilaalinta diinta islaamka iyo shuruucda dalka, dhammaystirka dastuurka qabyada ah, dhisidda maxkamadda dastuuriga ah ee qaranka iyo tayeynta hay-adaha cadaaladda iyo xeerdejinta. u fiirsada intaasba waxay ku baysgaraysantahay cadaalad iyo xuquuqda iyo waxaan aad u adkayn doonaa si sharciga iyo dastuurka loo adkeeyo. adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida siyaasadeed. waxaa muhiim ah in laga baxo nidaamka qaldan ee qaybqaybiyey qarankii iyo ummadii Soomaaliyeed ee 4.5